بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صلاة الليل habeenkii oo la tukado waa waxyaabaha ugu wanaagsan oo qofka muslimka uu sameyn karo. siiba ramadaanka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri man qaama ramadaana iimaanan wahtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. qofkii ramadaan istaaga oo ilaahay dadka uu istaaga iimaanan wahtisaaban ka rajayna Allah subhanahu wa ta'ala khayr iyo ajr dambigiisa oo dhan baa la dhaafaa. taraawiixda sidaas ayaan u tukanaa. nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa ka soo sidoo kale qofkii taraawiixda la tukado imaamka salaatuleelka la tukado imaamka ilaa uu ka baxo ilaa uu dhameystiro wuxuu la mid yahay qof habeenkii oo dhan tukanayay. tahajjudka maxaa la yiraahdaa? tahajjudka waa meel hujuud wa tarku an-nawm, qofka inuu hurdada ka tago wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak. habeenkii uu Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay qaar kamid ah hurdada ka tag oo ilaahay dartii u istaag. markaad istaagayso ilaahay dartii waa tukan kartaa. su'aalo badan baa soo aroorayo oo dadku waxay leeyihiin see u tukanaa tahajjudku. nabiga sallallahu alayhi wasallam nin baa u yimid wuxuu yiri nabi allah salaatu layli sidee u tukadaa? nabigu wuxuu ku yiri mathna laba tuko fa in khashita subh fa awtir. haddii aad ka baqato subaxa in uu kugu soo galo hal rakac ima witri ah. macnuhu waxa way habeenkii salaatu leylka laba u tukanaysaa, witri baa kusoo koobaysaa. saddex hadaad tukato waa adna al-kamal waxa loo yaqaano, yani meesha ugu hooseyso waa saddex inaad tukato, ama shan aad ka dhigto, ama toddobo, ama waxa way sagaal, ama 11. nabiga sallallahu alayhi wasallam 11 buu aad u tukan jiray. waxaa sidoo kale soo arooray in nabiga uu tukan jiray 13 inuu tukan jiray. waxaa sidoo kale soo arooray fi bacd al-alfaaz inuu tukan jiray 15 inuu tukan jiray. المهم اختلاف العدد wuxuu tusinaysaa in cadadka uu maqsuudka uusan ahayn oo qofka intuu rabo tukan karaa, laakiin in khushuucada uu joogo oo aad tukato salaad fiican. salaatu layli mathna laba weeye, witri baa kusoo koobaysaa. haddii la isku xiro ka waran ama la xariiriyo way ka sugnaatay nabiga sallallahu alayhi wasallam sagaal rakacadood inuu xariiriyay. mal qofku uu xariirin karaa, laakiin waxa fiican in laba uu tukaday sida nabiga sallallahu alayhi wasallam uu saxaabiga amray. gurigaada waad ku tukan kartaa, laba u tuko kadibna witr kusoo koob. haddii aad awood u hayso 7 tuko ama 5 ama 11 tuko, intii aad awoodo markastaba tuko. Allah subhanahu wa ta'ala ha ku barakeeye. habeenadan habeenka laylatul qadr baa ku jiro in la soo kaco oo la tukado. tuko haddii aad daasho waxa way adkaarta la imaw. haddii aad daasho quraan akhri. haddii waxa way marka la gaaro subax uu soo dhow yahay istighfaarta la imaw. yani markastaba xoogaa waxa way isbedel si aan nashaad u hesho. xoogaa marseexo, marna tuko, marna waxa way quraan akhriso, marna adkaar la imaw, marna ducayso, marna istighfaarta la imaw. intaba isku dar. ilaah naga aqbalo. barakallahu fiikum. wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.